dalka Shiinaha ayaa wali cartamaya isla markaana reer galbeedka iyo Shiinaha ayaa isku muuqda. Dowladda Mareykanka ayaa sirdoonkeeda ogaaday in xog la qariyay oo dhacday bishii Agoosto ay ahayd mid aad u foolxun oo ay ahayd in goor la sii ogaado sida ay sheegayaan wargeysyada caalamka. Wargeysyada Mareykanka gaar ahaan wargeyska Financial Times ayaa ku tilmaamay in dowladda Mareykanka sirdoonkeedu ay ku argagaxeen isla markaana ay ku naxeen wax loo maleeyay xog la qariyay oo ku aadaneed qaab cusub oo gantaal dhinaca hypersonic ah oo dowladda dalkaasi ay horumarisay oo soo baxay kaasoo ka duwan ayaa dhamaan waxay ku tooqasay oo dhan. Waxaa lagu tilmaamay in marka la eegay xajmiga iyo qaabka uu u socday gantaalku inuu ka casrisan yahay kana sareeyo ayaa la yiri dhamaan hanaanka dhinaca hypersonic ee dowladda dalkooda. waxaa la yiri tan waxay ku tusinaysaa in arintu ay tahay horumar aad weyn Shiina uu gaaray waana arin halis leh ayaa lagu yiri sarkaal sare war laga soo xigtay oo Mareykan. Dhanka kalena waxaa la sheegay in gantaalka uu 20 kilomitir 20 mayl ama 32 kilomitir oo kaliya u jirsaday bartilmaameedkii. Waxa marka gantaalkan uu kaga duwan yahay gantaalada kale waxaa la sheegay inuu jawi hoose ku soconayo marka hore. Sidaa daraadeedna jawiga hoose markuu ku soconayo ilaa iyo dhulka ammaanka ah oo dhan uu jawi hoose ku dhaafayo. Tusaale ahaan dhulweynaha markuu ama baxayo Shiinaha marka uu dhulka cadowga gaarana waxaa la sheegay in uu lumayo oo aan la arkaynin ilaa iyo inta la soo dejinayo lagu dhufanayo bartii uu ku socday lagu ajis gareeyay sida ay sheegayaan xubnuhu. Taasoo jirta ayaa maraakiib dagaal oo laba ah ayaa waxay ku xirteen ayaguna badda marinka loo yaqaano Taiwan Strait. Marinka biyoodka caalamiga ee khatarta badan ee dowladda dalkaasi bariyay ugu dambeeyay dhan gaala baxasay. Dhawaan waatii ay Taiwan maamulka yar ee Gorgosadka watay sheegeen inay u baahan yihiin dimuqraadiyadooda la badbaadiyo. Laba markab oo dagaal oo midna Canada leedahay midna Mareykanku leeyahay halkaas la ogaaday dowladda dalka Shiinaha ayaa sida fiinta uga qaylisay. War qoraal ay soo saartay Shiinuhu waxay sheegeen in aagan ay ku arkeen tahay halis aad weyn. Waxay ku tilmaameen in arintan ay u muuqato dantaansi xoogan iyo falxumo ka soo jira halkaasi. War qoraal ay soo saareen ciidamada qalabka sida dalkaasi loo yaqaan ciidamada difaaca dalka People's Liberation Front ama xoreynta dalka ayay sheegeen inay arkeen dhaqdhaqaaq ay ku tilmaameen inuu yahay mid cara dhalinaya ahna gardarro iska cad. Si kastaba noqotay war qoraal oo Mareykanku soo saaray ayay sheegeen in labada markab oo mid la yiraahdo frigate uu ah oo nooc loo yaqaan HMCS Winnipeg oo dalka Canada ka soo baxay iyo markabka kale xambaaraha hubka la liishaamo ee gantaalaha culus ee loo yaqaan D-Ways ay u tageen halkaasi. waxa uu ku yeeray Mareykanku niyad wanaaga ilaalinta qolqolka Indo-Pacific oo aag loo yaqaan. Tani mad aan kala labeynana ma ayuu yiri Mareykanku. Waxaan halkaas u tagnay anaga waxa weeye niyad wanaag iyo indhaynta xuquuqda qolqolka dhinaca maraakiibta ay qolqolaan ayuu yiri biyaha caalamiga ah. Tani way sii socon doontaa ayuu yiri tan iyo ilaa iyo inta aan ka gungaarino. Waxaana Mareykanku markale ku celinaya ayuu yiri inuu xaqiijinayo cilaaqaad wanaajinta uu la leeyahay ayuu yiri dowladaha oo la leeyahay cilaaqaadka dhinaca militariga iyo ballanqaadyadii hore u ballanqaaday Saudi Arabia.